السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنرالka Qalin kusoo dhawaada maalin wacan maanta waxaan jecelnahay inaan ka hadalno Ukraine iyo xaaladda dagaalkeeda uu marayo dagaalka Ukraine dagaalka duulaanka Ruushka halka aad ku arkaysaan waa jaraa'idka ayaan fiirinaynaa halkan waa BBC News weeyaan saa u jeedaan dagaalada hadda inta ugu daran waxay ka socdaan Makriv iyo meesha la yiraahdo Kharkiv iyo meesha la yiraahdo Mykolaiv halkan calaamadahaas aad u jeedaan cagaaran ama aqdarka ah leedahay marka goobahaas dagaal ba'an ayaa ka socdo halkan saad u jeedaan dagaal oo laxaad ah ayaa ka socdo xataa ciidamada Ruushka waxa halkan leeyahay waa lagu gadaadeysan yahay dhinacyadoo dhan waxa ka soo galay ciidamadii Ukraine waxyaabaha daciifiyay ciidamada Ruushka waxa ka mid ah in diyaaradda loo yaqaan Bayraktar soo saaray wiilka yar oo sodogo uu yahay madaxweyne Erdogan Recep Tayyip Erdogan loo yaqaan Seljuk Bayraktar oo asaga handisay iyo alifaadeedu uu lahaa diyaaradda ay heshiis Ukraine waxay la gashay dalka Turkiga inuu ka iibiyo 24 xabo oo diyaaradaas ayuu ka iibiyay ayaa la sheegaa marka diyaaradahaas waa diyaaradaha ay ku howlgarayso taangiyada iyo gawaarida xamuulka iyo gawaarida shidaalka Ruushka uu isticmaalaya baaba ka dhigtay meel walba iyo deegaan walba ka mid Ukraine ku baabaysay sidaan sawirada ka tusi doono oo aad la wadaagi doontaan sida sawirkan oo kale hadda aad arkaysaan waa taangiyadii oo la qarxiyay diyaaradahaas qarxiyeen suxun u galeen iyo kuwa ka badanba sawiradan haddaan ku soo noqdo maapkeena Kharkiv iyadan waa jabhad adag waaye dhankaas oo Ruushka uu rabo inuu ka soo galo uu ka soo galgari waaye dhankan Kherson uu haystaa laakiin hadda dagaal xoogan baa ku soo fooday maadaama Mykolaiv halkan uu dagaal ka socdo meesha cagaaran ciidamada Ukraine soo laba kaclayaan sidoo kale Mariupolna waxaa joogto qolooyin iska caabin wadaniyiin loo yaqaan Azov ka soo horjeedo Ruushka iyo gumaysigiisa oo ilaa hadda magaaladii iyadoo hareeraysan haddana dagaal ba'an ka wadaan laakiin gurmad baa dhanka ka soo socda Ukraine ayaa maalmahan sheegay ku soo wajahan si ay caawimaad kaga helaan tan waa maapka dagaalka sidaad arkaysaan u dhaxeeya Ukraine iyo Russia sidoo yahay haddii aan ka gudbo waxaan gudbayaa sidoo kale maapkan aad u jeedaan sidoo dagaalku u socdo ayuu sharxayaa maapka halkan ku yaala oo waxa weeyaan Kiev sida dagaalka ugu xariirsantahay caasimada Ukraine ay si fiican ku tusaya maapkan si fiican buu ku tusaya oo jeedaan Chernihiv asagana dagaal ba'an baa ka socda weli lama qabsadan laguma hayo Sumy sidoo kale dagaal ba'an baa ka socda Kharkiv sidoo kale halkan aad arkaysaan huruuda uu marsan yahay oo dhan meelahan calaamadahan huruuda marsanta oo dhan waa halka ugu ba'an dagaalada ka dhacayaan isku hormaadyada uu ka dhacayo sidoo kale halkan xataa isku hormaadyo ayaa ka socda maalmahan hadda ugu dambeeyay ayuu ka socdaa si aad u jeedaanba marka dagaalkan waxa ay dadka falanqeeya siyaasadda waxay leeyihiin waxa laga baqayaaba in uu noqdo dagaalkii saddexaad adduunka hadduu sii socdo welina Ruush isticmaasho hubka halista taadan ku gudbo waxaa soo baxday arrin xasaasi in ay kulmeen hogaamiyaasha caalamka gaar ahaan wadamada loo yaqaano G7 iyo midowga NATO iyo midowga Yurub kulmeen marka aragtaan intaan oo kulansan waad iska garanaysaan ciidamadan oo kulansan haday aad aragto macnaheedu waxa weeye arrin ayaa jirta wax ninka ugu dhaxeeya iyagoo dhan maamulo midowga NATO gacanta ku hayana waa ninkan la yiraahdo Biden
ayaa hawshaas oo dhan ayaa abaabulay haddaba maxaa ka soo baxay shirkii iyo arrimihii socday maxaa ka soo baxay waxaa la sheegay in ay ka soo baxeen Biden in uu yiraahday haddii Ruushka ay isku daydo in ay isticmaasho wax awood ah sida hubka nuclear-ka ah iyo hubka aad wax u gumaado inay soo galayaan iyagana dagaalkaas ay dhinac ka yihiin taasna waa arrin halis ah oo xaddigeeda leh weeyaan sidoo kale Biden awood uu isticmaalay jimcihii la soo dhaafay oo shalay ahayd in uu ka degay mataarka Warsaw dalka Poland ah waana halka maqarku ahaan jirtay midowga Soviet Warsaw oo Poland markuu haysan jiray dhulalkaas oo dhan markuu haysan jiray waa halka uu ahaan jirtay goobta uu degan yahay laakiin maanta waxay ku tusinaysaa Biden asagoo dagaalka socdo inuu diyaaradiisa halkaas ku tagay awoodda buuxda ee midowga NATO leedahay ay ku tusinaysaa in ay yareysanayso Ruushka awoodiisa Ruushkana sidoo kale asagana waxba ma yeeli karo oo waxa waa dagaalka ayaa si balaarinaya xadkiisa ayuu ka baxaya marka Biden wuxuu ku andacoonayaa halkaas marka inuu ku tagay shabatoole in uu kaamam oo u furo ama uu caawiyo qaxootida la yiraahdo dalka Ukraine in Poland lagu furo goobo lagu ilaaliyo sidoo kalena muxuu ahaa kaamam loogu sameeyo si xaaladooda loo daryeelo laakiin ujeedada weyn oo halkaas u tagay waxay tahay in Biden uu wado ciidamada inuu dhiirigeliyay inay isdiyaariyaan dagaalka u diyaar garoobaan sida aad sawiradan aan soo bandhigay aad ka arki kartaan oo ciidamadiisa kula kulmay hataa waxay ku tusinaysaa inuu Mareykanku leeyahay aniga iyo ciidamadeeda haddaan hogaamiyeyna xataa kalama duuni dad waxaan ahanay isla siman xuquuq ahaan halka Ruushkiina oo ku tusinaya dictator inuu yahay xataa dadkiisa dowladda iskala shaqeeyaan siyaasiyiinta ah xataa inuu iska sareysiinayo marka arrintaas aan ka gudbo sidoo kale halkan waxaa ku sugan aad arkaysaan iyadana waa muxuu ahaa jaraa'idada European-ka wararkooda soo bandhigto Ukraine ayay ka sheekeynaysaa iyadana si aad u jeedaan iyo xaaladeeda ayay ka sheekeynaysaa iyo wararkeeda marka displaced Ukrainian families seek calm after feeling conflict zones waxaa dadka barakacayaasha Ukrainiyaasha ah weeyaan iyagoo raadinaya meel xasiloon markii kadib dagaaladii meelihii isku haysay dagaalka dhacay aan soo tilmaamay ay ka soo qaxeen taas waxay ku tusinaysaa dagaalkan Ukraine in uu yahay mid ay si xoogeysanaya maalinta ka dambeysa sidoo kale waxaa aragtaan hadalkii Biden si uu kula kulmo qaxootiga Warsaw hadii sheegay muuqaalkeeda halkan ayaad ka arkaysaan halkaas ayuu Poland ayuu kaam dalbaya in laga furo qaxootidana lagu soo dhaweeyo kaliya idaacadaha reer galbeedka oo kaliya kama hadlin halkan waxaa ka hadlaya xataa sidoo kale idaacadaha ee laga leeyahay dalka Carabta sida Al-Arabiya waxay sheegeen in dagaalkan Ukraine u dhaxeeyo muxuu ahaa iyo Russia inuu keenay in go'aano ay gaaraan bangiyada caalamka ah taas oo ay kaga dhigayaan kor ugu qaadayaan lacagta kala iibsiga dhulalka iyo waxyaabo fara badan taas oo saameyn xun ku yeelanayso dhaqaalaha oona dhaqaalaha mar walba noqonaya sicir barar uu halkaa ka dhacayo sidoo kale iyadana Al Jazeera way ka hadashay mar national interest idaacadda la yiraahdo ee warka soo xigatay halkan sida ku xusan waxay leeyihiin dagaalka Russia iyo Ukraine u dhaxeeyo way ka fog tahay in uu soo dhawaado dhamaadkiisa macnaheedu waa dagaal socon kara weeyaan sidoo kale halkan qaybtan waxaad ka arkaysaan iyadana dagaalka halkuu maraya iyo heerka uu joogo waxaa lagu leeyahay mas'uuliyuun غربيون يتحدثون عن مقتل 7 جنرالات روس في معارك أوكرانيا طلبة جنرال oo ciidamada hogaaminaya ee Ruush ah ayaa ilaa ay imaka geeridooda la xaqiijiyay ee dalka Ukraine ah halkaas Ruush waxa ku tusinaysaa xaggii awoodda ciidan ee caadiga ah ee dhul
inuu ku fashilmay oo hadda u wajahay maalmahan dagaalkiisa dhulka ah mala maqlaynin sidaad u jeedaan kaarayaashii wuxuu isticmaalaya dhammaan waa la gumaaday marka wuxuu u bedelay dhanka weerarka cirka oo ah gantaalada waaweyn wax burburiya oo misailka la yiraahdo in uu isticmaalo ayuu isu bedelay marka wararkaas iyo wax kale ka badanba waxaan jecelnahay in aan idinla wadaagno waa channelka Khalid waxaad leeyahay daawasho wacan